Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland Engineer Weerar Maxamed oo maalmihii ugu dambeeyay howlo nabadeyn u joogay degmada Ceelafweyen oo ka tirsan galbeedka gobolka Sanaaga ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee deegaanadaas iyo weerar ay xalay ay soo qaadeen Jabahada Caare waxaana wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somaliland Engineer Weerar Maxamed oo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii kamid ahaa sida tan markii darar weyne oo soo weerari jiray soo kale wax uga tuurtuuri jiray xalayna waa yimi xoogay uu tuurtuuray muddo 10 daqiiqo meelahaasa meelo gidaaraaba xabada ku dhuftay dabeedna ciidankii qarankuna waa ugu yimi halkaas waa la bacsaday sidaas uu magaalada kaga baxay waxaana maantana waati oo kale marana markuu ogaado nabad weyn dhowdahay waa carqalad loo soo diro oo siyaasi ah oo meel ka fogna laga soo amro oo ka timaado baan maalaynaa ninkan xukuumadda doonaya maaha waa nin doonaya beelaha shacbiga mala wax ka sii yara tutorial waan joogaa meelahana ko looga lacag inta ugu soo diranay lacagtii soo diraan baan malaynayaa waa operationiska noocaasa laakiin xukuumaddu iyada waajibaadkeeda ay tahay inay wax ka qabato si dhaqsaana wax waa looga qabanayaa xalabada wixii ka saaray ciidamada ay ahaayeen isaguna nin dagaal u jeeday maaha ninka intuu soo dusinta magaalada wax ku tuurtuuray waan joogaa baxsaday buu ahaa mas'uuliyadda dawladda weeyna wax ka qabato waxaana sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland sidoo kale daliil u soo jeediyay qaar ka mid ah qurba joogta reer Sanaaga oo sheegay inay hurinayaan colaad sokeeye horta ninkan xukuumadda doonaya maaha waa nin doonaya beelaha shacbiga mala wax ka sii yara tutorial waan joogaa meelahana ko looga lacag inta ugu soo diranay lacagtii soo diraan baan malaynayaa waa operationiska noocaasa laakiin xukuumaddu iyada waajibaadkeeda ay tahay inay wax ka qabato si dhaqsaana wax waa looga qabanayaa waxaana ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland uu guud ahaan baaq u soo jeediyay shacbweynaha ku dhaqan gobolka Sanaaga ugu baaqay in adkaystaan nabadgelyada intaas labada sanadood iyo dheeraadkii isdaba socotay oo culimo iyo wadaadba iskugu yimaadeen oo halka ugu dambeysay maraysa inay gacantooda ku qabsadaan inay dhagu taagin nin siyaasi oo markaa muraad gaar ah leh inay dhagu taagin cid ujeedo gaar ah leh ay dantooda waxbarashadooda horumarkooda iyo isku duubnidooda unbay wax ku gaariyaan ay halkaa maraan sidaan ognahay meelaan nabad ka jirin horumarka ma jiro iyadoo caynkaas baa waliba aad iyo aad ay xukuumaddanu itaalkeedii ugu soo wada gudbisay gobolka Sanaaga sida wax uga qaban lahayd ay garoonka dimka ku jirayaan guddida qandaraaska hadii la yiraahdo garoon weyn oo loo dhisaayo waa ogtihiin dekadii mayd waa la soo daayay wadada argaabo way socotaa isbitaalkii weydinka ogsida ay isku bedelay Ayaa Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceelafweyen.